xasan sheekh maxamuud ayaa qaadanaya maalmaha ugu adag ee xafiiska uu shaqadiisa qabanaya mar labaad waayo aragnimadiisa xafiiska iyo doonistiisa saaxiibada ayaa ku kulmaya magacaabidda ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. xasan sheekh oo garanaya sida ay u adag tahay madaxweyne kursiga lagula fadhiyo oo uu shaqada qaranka u hagi karo isagoo soo jooga u ahaa wixii xafiiska kaga halaabay gacanta labaad ee qalinka la lahayd ayaa mar kale wajahaya caqabadii hore la mid ah. waxa uu si dheer xaalka iyo waaqaca Soomaalida oo aan sidii hore ahayn, dowlad goboleedyo dhismay, maamul ahaan kobcay, siyaasad ahaan horumaray ayaa saaxadda siyaasadda ku soo kordhay. wacyiga bulshada Soomaalida iyo la socodkooda dhaqaaqa xafiiska fiila Soomaaliya waa mid kale oo tabnaan iyo toganba ku ah maamulka hadda jira. xasan sheekh maxamuud waxa ugu weyn ee laga sugayo waa shaacinta ninka noqonaya hoggaanka xukuumadda, shakhsiga la magacaabayo oo ku imaanaya qoondada nidaamka Soomaalida ee 4.5 ayaa xafiiska madaxweynuhu baadigoob ugu jira. shakhsi la sifooyin aan la wada akhriyi karin ayaa laga raadinayaa kooxda taraha ra'iisul wasaaraha tribkan leh. shakhsi khibrad dawlad aan lahayn misana waayo arag ah, qof xal keeni kara balse aan xaqiiqada ka hadli karin, nin magac sito oo aan matalaad muujin karin. ra'iisul wasaare maamuuska xilka ka doorbida magacaabista waa 4 sifo oo ay adag tahay in la isku helo ama ay hal qof ku kulmaan. si talada magacaabisu u soo koobnaato waxaa la qaatay in la helo shakhsi xallin kara doonista kooxda madaxweynaha oo ah samaysinka maamul goboleed cusub oo kulmiya Banaadir iyo Shabeellada Hoose, sidaasoo kale isla marna waa wada qanciya Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. marka la eego talada ay bixinayaan saaxiibada madaxweynaha waxaa muuqata in xasan sheekh waqti hore bilaabayo inuu dib u qaabeeyo dhismaha dowlad goboleedyada. shaqadan waxaa la marsiinayaa xafiiska ra'iisul wasaaraha oo la jaan qaadi doono qorshe degsan oo diyaarsan. haddaba qorshaha ilaa hadda miiska yaalla iyo ra'iisul wasaare ku shaqayn kara waa kuwama: 1. isbeddel maamul oo Jubbaland lagu sameeyo, in madaxweynaha Jubbaland boos ka banneeyo, dib u heshiisiinta Gedo iyo Jubbaland la qabto, taas beddelkeeda 4 sano ee soo socotay Gedo hayso madaxtinimada Jubbaland. haddii la qaato qorshahan bilowga ah waxaa xafiiska ra'iisul wasaaraha loo saadaalinayaa inuu qabanayo qof ka soo jeeda Jubbaland, gaar ahaan afmadow. 2. dhisidda maamulka Banaadir. maamulkan waa mid inta badan siyaasiyiinta iyo qoorweynta Muqdisho ay hadal hayaan. waa Shabeellada Hoose oo lagu daro Muqdisho, isla markaana gobollada Gedo iyo Jubbada Dhexe deegaano hoostaga la raacsiyo Koonfur Galbeed. waa aragti ay adag tahay dhaqangalkeeda, balse waxa ay mudnaan u tahay siyaasiyiinta madaxweyne xasan sheekh ku dhistay xafiiska. haddii la hirgeliyo aragtidan waxaa isagana xafiiska imaan doona siyaasi matala Gedo oo xafiiska ra'iisul wasaaraha qabta. haddii sida ay qabaan kooxda madaxweynuhu wax ku socdaan, waa madoobe oo cimri siyaasadeedkiisu soo gaabto, weliba si ka degdeg badan saadaal kasta oo horey loo qabay. waxaa kale oo ku lamaan in hoos loo dhigo awood siyaasadeedka deegaanada Puntland iyo siyaasiyiintooda, in la kala jebiyo awoodda deegaan ee Puntland iyo Jubbaland. waa filashada dhow ee saaxada siyaasadda Soomaaliya. waxaa lagu hirgelin karaa iyadoo xafiiska ra'iisul wasaaraha ama Kismaayo uu ka arrimiyo siyaasi ka yimaada Gedo ama Galguduud. si kasta ha ahaatee, magacaabista ra'iisul wasaaraha waxaa la filan karaa hirar siyaasadeed oo mar kale ka bilaabanaya Soomaaliya. Puntland iyo Jubbaland ayaana dhibanaha u horreeya u noqonaya shaqo doorasho oo ay wax badan ka shaqeeyaan miro dhalka ka imaanaya. bishaaro waxaan kuugu bishaaraynayaa application-ka Baysi. waxa uu kaa caawinayaa inaad ehelkaaga lacag u dirto adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada. loo diraha lacagtu waxay ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta. Baysi waxaad ka heli kartaa App Store-ka iyo Play Store-ka.